kasoo nagala socotaan daawadayaal ku soo dhawaada warkii TV hadahan oo kala nooga barateen inaan hawadeedii soo marino qodobada wararka aan idin hayno kuwa ugu door garoona waxa kamid ah waxa dhammaan maamulada heer deegaan heer gobol heer degmo iyo maamul magaalo ay ka qayb galin shirki qabeynta xisbiga Addis Ababa ka dhacay loogu baaqaya inay iska soo xaadiriyaan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga kulan wada tashi oo ay yeesheen saraakiisha hay'adaha amniga deegaanka iyo kuwa federaalka ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in gaasi nabad yahay oo laga nadiifiyay al-shabaab daawadayaal qodobadan ayaa qodobada warka tan ugu door garoon qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda ku soo dhawaada markale kulanti wacan oo wanaagsan haddana ku soo dhawaada qodobadii warka oo dhameystiran waxa dhammaan maamulada heer deegaan heer gobol heer degmo iyo maamul magaalo aan ka qayb galin shirki qiimeynta xisbiga ka dhacay Addis Ababa loogu baaqaya inay iska soo xaadiriyaan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga faalada warkana waxa inoo haya wari Cabdi Umar madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar waxa xafiiskiisa ugu waramay warbaahinta deegaanka ayaa bulshada deegaanka iyo hay'adaha amniga ku ammaanay sida ay u adkeeyeen ugana qayb qaateen nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka waxaana mudane Mustafa Maxamed Umar ugu baaqay dhammaan maamulada gobolada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka ee aan ka qayb galin shirki ka dhacay magaalada Addis Ababa inay yimaadaan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga maalinta bariya oo shirar ay uga bilaabmi doonaan marka waxaan rabaa in salaamo shacabka deegaanka kuna amaano sida maaragtay habsamideeda ilaa iyo hadda ay maaragtay u sugeen ammaankii meelaha ay joogeen iyadoo oo aan ognahay in xilli marxalad yar kala guur ah lagu jiro xilligan arrimihii dhacay deegaanka awgood waxa ay tahay maanta in la sameeyo waxa weeye in la ogaado in isbeddel mar walba uu dhaco sidii hadda ka horba uu ahaan jiray haddana waxaynu ku jirnaa marxalad aynu maaragtay rabno inaan isbeddel kale oo dalka ka dhacay la qabsano kaasi uu ahna qaado waxaan u baahannahay inaan dowladnimada ilaalino hadday noqoto hay'adaha amniga ee maaragtay deegaanka iyo hadday noqoto shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiintaba waxaa la rabaa oo aada waajib ay ku tahay inay ilaaliyaan sharcigii iyo nidaamkii ka jiray meesha oo ay maaragtay wixii shaqaalihii dowladda shaqadoodii wataan wixii mas-uuliyadoodii wataan ilaa iyo inta maaragtay cid kale ay u imaanaysay kala wareegayso haddii loo baahdo in lagala wareego in dhammaan hogaaminta heer degmo dhammaan hogaaminta heer gobol heer maamul magaalo iyo kuwa heer deegaan intii aan ka qayb gelin qiimeyntii ka Addis Ababa dhammaantood bari laga bilaabo laga rabo inay soo galaan magaalada Jigjiga waxaa bilaabmaya barnaamijyo oo lamida kuwii maaragtay Addis Ababa lagu soo qabtay oo kale iyo shirar baa u bilaabi doona kuwaas oo ay tahay maaragtay inay yimaadaan magaalada Jigjiga laga bilaabo Britole kulan wada tashi oo ay yeesheen saraakiisha hay'adaha amniga deegaanka iyo kuwa federaalka ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga Cabdirasaaq Ibraahim ayaa iyadoo weli ka soconayaan caasimada deegaanka ee magaalada Jigjiga shirar kala duwan oo ay yeelanayaan hay'adaha kala duwan ee nabadgelyada ee heer deegaan iyo heer federaal si xal waara looga gaadho shaqooyinkii dhawaan ka dhacay magaalada Jigjiga iyo goobo kale oo kamid ah deegaanka ayaa waxa ka dhacay hoolka shirarka ee Qaryandhudan ashir ay isugu yimaadeen hay'adaha nabadgelyada ee deegaanka iyo kuwa heer federaal ashirkani oo ahaa mid lagaga wada hadlayay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa qoomiyadaha kala duwan ee ku nool caasimada deegaanka ee magaalada Jigjiga ee 4 Agoosto lagu waxyeelay rabshadihii ka dhacay goobo kamid ah deegaanka iyo sidoo kale wararkan aan saliya raatoona lahayn ee lagu faafinayo baraha bulshada asi mar kale la isaga horkeeno qoomiyadaha walaalaha ah ee sida nabadgelyada ah ku wada nool waxaana waraysi kala yeelanay ujeedada shirkani komishineerka komishinka booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Redad Commissioner Maxamed Cali Xasan shirkan ujeedadiisu waxay ahayd sidii looga hortagi lahaa waxyaalaha propagandada ee maalin kasta ka jira waddanka nabadgelyaha isla markaana loo xoojin lahaa nabadgelyada magaaladan bulshada loo wacyigelin lahaa dambiyadan looga hortagi lahaa isla waxaa jirta maalmahan saad ogsoontihiinba
dad barabagaandho badanoo waxbaa islaayey ciidan baa islaayey dad baa magaalada lagu gowracay waxaas waxba kama jiro tusaalahaan shalay tii dhacday oo kale 2 nin waxaa jirtaa intay cabeen oo sikhraansan iyagu islaayey kadib nabarreys ku dhufteen dhiiggii meesha ku daatay ayaa waxaa la yidhi dad baa lagu googooyey taasna ma jirin wax ka jirin ma jirin sidaa darteed dadka bulshada waxaanu sheegaynaa in waxyaalaha noocaas oo kalaha ee dadka isku diraya ee dhibaatada keenayaan shacabku inay iska ilaaliyaan dad cadawahoo wax koobanoo waxaa jira ka faa'iidaysanaya oo doonaya dhibaatadii shalay dhacday inay soo celiyaan waxyaalaha facebooka lagu soo qorayana wax dhaba ma aha nin meel iska fadhiya wax iska soo qoraya marka bulshada waxaanu sheegaynaa waxyaalaha loo sheegayo ee barabagaandhada inay horta ogaadaan waxaan ma runbaa ma beenbaa ayna qaadanin weeyaan taasaan odhan lahaa sidoo kalena qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska ee deegaanka ayaa geestooda ballan qaaday inay sharciga hor keeni doonaan cod kasta oo ku lug lahayd rabshadihii dhowaan ka dhacay magaalada Jigjiga iyo goobo kale oo ka mid ah deegaanka iyo weliba kuwa waqti xaadirkani ku guda jira falalka ka dhanka ah xasiloonida deegaanka. Fariin baan u dirayaa dadka barabagandada magaalada ku dhaxwada weli dadkii magaalada boobay ah magaalada iyagoo isku qarinaya dadka hoosta ka kicinaya waxaan uga digayaa magaalada inayna wax barabagaandho ah ka samayn karin dabagalna aan ku hayno sharcigana la horkeeni doono haddii ay ka tanaasuli waayaan ka tanaasulo ha ka baxaan baan leeyahay bulshada dadka warka beenta u sheegaya inay ka baxaan baan u gudbinayaa aad iyo aad baad mahadsantiin waxaa jirta barabagaandho ah ciidankii liyo booliska ee gaarka ahaa madhabanyaagii milatarigii dhibaatooyin baa jiray wax noocaas leeyahay taa wax ka jira ma jiro ciidanka deegaanku gacantu isaystaa waa hal fara nabadgelyadana sideedii u soo celinayaa waa ciidan dastuurka qaranka ku aasaasan sida dastuurku uu qeexay ayaynu fulinayaan iyo gacmaha isaysta shacabkanagana waxaan ugu baaqaynaa inay ogaadaan midnimo inay gacmaha isqabsadaan in laga baxo barabagaandada iyo waxa lagu jiro in ay nala shaqeeyaan annagoo ah xoogga amniga ee deegaanka Soomaalida waxaan maartay dadka kicinayo in yar oo la abuuray oo maartay ama kuwa dad hore ka haray oo heegaadii ama maartay dad kale oo maartay cadow oo la soo adeegsaday way noqon karaan dadka qacmaha hurgufahay inuu shacabku maartay iska digtoonaado oo maartay uu fiiriyo oo wax been uu ka hortago oo iska qabto oo marka qaybta sharciga booliska ay u keenaan ama ciidanka qaranka noqdeen ama federaal booliska noqdeen ama ciidanka booliska caadiga noqdeen inay u keenaan cadawgii maartay kicinayo magaalada inuu u keeno wixii dambi geysteen dabagal lagu sameeyo oo nin kasta waxa hayo oo meelaha sharciga u keeno oo maartay uu soo dhaweeyo waxaan shaqaynay muddo 26 sano ah waxaan dawlad deegaanka isbedelay 12 madaxweyne waa madaxweynihii 12aad hadda Mustafa Maxamed Umar 12 ka madaxweyne deegaanka iska bedelay lama kulmin madaxweyne kastoo xilka laga qaaday waan joogay lamana kulmin macnaha dhibtan hadda ka dhacday magaalada Jigjiga qabri dahar dhagax buur goday dhibaatooyinka deegaanka ka dhacay ee qoomiyadaha kale Itoobiya lagu bartilmaamsanay wax ka dhacay deegaanka ma yahay taasina tu macnaha shacabka deegaanka iyo hay'adaha nabadgelyada deegaanku macnaha ay ka wada socdeen in dhibaatadan la sameeyo ma yahay dhibta dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan uga xunnahay maadaama oo anagu muddo dheer shaqaynaynay muddada aan shaqaynaynayna dhibaatooyin noocaas aanan arag la yaab bay nagu noqotay argagax marka dadkii dhibaatadaasi ku waxyeeloobay iyo kuwii ku dhintayba waxaan taxsiban kuwii ku dhintay taxsiban u doona kuwii wax ku waxyeeloobayna ilaahay ha u booqeedhayo waxaan leenahay dadka Itoobiyaanku si u wada noolaayeen ha wada noolaadaan shakigana ha iska saaraan cidii dhibta wadana cidii dhibta keentayna baaris bay dawladdu ku jirtaa oo macnaha waa la gaaraya